kulanti wacan oo wanaagsan saaxiib balidahaantiin meel walba aad joogtaan Ramadaan Mubarak dhamaantiin meel walba aad caalamka ka joogtaan saaxiib bal waxaan leeyahay Ramadaan Mubarak magacaygu waa Xamse Rayga halkanina waa janaalkeena xog bixinta wararka fadlan dad ku cusubtay saaxiib nagu soo bir oo ka mid noqon kumanaanka kun ee qof sida joogtada mar walba barnaamijyada halka soo galno sida tooska ula socda hadaba saaxiib bal waxa baraha bulshada qabsaday hooyada Soomaaliyeed ee ka soo ahayd ama ka hadashay ee rasmi rays arrinkeeda maadaama rasmi rays ay inanteeda tahay arrinkana uu noqday mid baraha bulshada Soomaalida dhexdeeda galgalay ayay uga hadashay oo baraha bulshada soo dhaxdhigtay muuqaal ay leedahay kadib markii isaga iyo Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmi rays khilaaf u dhaxeeyo cirkas ku shiray halkaas oo rasmi rays ay sheegtay arrimo badan oo private ah oo halka aan social media la soo dhaxgalin hadaba arrimaha private ka ee rasmi rays sheegtay awal horena ay ku haysatay qalbigeeda ama maankeeda kadibna ay social media inta bartay YouTube soo fadhiistay ayaa noqday mid dadkii aad ay uga coran ehelada uu ka soo jeedo Farxaan Yare hadaba Farxaan Yare ayay ku noqotay bahdilaad aad u culus kadib markii halkaas muuqaalka ay soo duubtay rasmi rays hadaba waxa la isku haystaa muhiimadu ay tahay sidoo kale maadaama barihii ugu dambeeyay ay isqabeen fanaanka ay kala tageen Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmi rays hadaba caruurta rasmi rays u dhashay Farxaan Yare ayaa lagu sheegay in aan waxba gama jiraan sida ay cadeysay hooyada la xidhiidhay oo saddexda Farxaan Yare kadib markii uu bartiisa Facebook ku soo baahiyay arrimaha hooyadiisa isagoo kaga duuban muuqaal live ah ama sidoo kale cod baahiyay hadaba arrimahaas oo la isku qabsaday baraha bulshada gilgishay ayaa waxa codsi ama muuqaal soo dirtay hooyada dhashay wiilka rasmi rays sidoo kale qabay sidoo kale rasmi rays waxay ku laabatay halkii ay ka soo kicintay Nairobi iyadoo dhibaatooyin culus ka sheegatay sidoo kale rasmi rays dhibaatooyin culus ka sheegatay Farxaan Yare hadaba Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmi rays hadii carifkooda dhamaaday bilo ka hor ama sidoo kale muddo ku dhow sanad maxaa maanta baraha bulshada keenay in ay arrimahan soo farfaraan soo maaha ceeb adduun hadaba sidoo kale Farxaan Yare ayay ku noqotay mid dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay kaga tagto aflagaado sidoo kale Farxaan Yare loo jeedinayo maadaama sidoo kale rasmi rays ay sheegtay arrimo badan oo qarsoona sidoo kalena ay la soo baxday waxyaalo runtii aad uga naxaysay markaad dhageysatay muuqaaladeeda haddii aad u fiirsatay muuqaal ay soo duubtay 3 bari ka hor dhammaan dadka daawaday waxa ku dhow yahay 5 milyan oo qof taas oo dadka Soomaaliyeed ay dhagta u taageen arrinka Farxaan Yare iyo rasmi rays in midun ka soo hadasho maran hadaba sidoo kale arrinkan wuxuu gaadhay family ilaa xataa hooyadeed rasmi rays iyo sidoo kale Farxaan Yare family-giisba ay arrinkan faraha la galaan maadaama uu arrinkan faraha ka sii baxayo maadaama dhowr bilood isla soo dejiitan jiray Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmi rays ay halkaas ku kala tageen midba jigjiga ka degay midna sidoo kale Nairobi hadaba Farxaan Yare wuxuu ahaa wiil reer Boorama sidoo kale markuu guursaday rasmi rays wuxuu keenay magaalada Boorama isagoo damaashaad ku soo mariyay gabahaan Somaliland hadaba Farxaan Yare inkastoo waayihii ugu dambeeyay ku sugnaa caasimadda jigjiga iyo sidoo kale Soomaali deegaanka rasmi rays waxay ku sugnaayeen intii halkaas joogtayba magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya sidoo kale halkaas ay ku soo qaadatay waqtiyadeedii ugu badnaa ama nolosheeda looran karo halkaas ay degan yihiin qoysaskeeda aad u tir badan sidoo kale saaxiib beel cunuga yar ee sidoo kale rasmi rays soo bandhigtay ayaa noqday mid brank ay ku sameynaysa rasmi rays kaas oo dhammaan buuq galiyay social media sidoo kale kaas oo rasmi rays ay ku tijaabinaysay ninkeeda Farxaan Yare in uu yahay mid caqli laawa iyo sidoo kale qof caqliyahana oo la socda xaalka rasmi rays in ay markii ay ka tagtay urur lahayd iyo sidoo kale oo maadaama ay ka maqneen in qof kalaba ijmaac la sameyn karo ama sidoo kale qof kalaba halkaas kala kulmo sidaas tirtiina ur ku qaata maadaama rasmi rays markii ka tagtay sidoo kale ay ku jirtay cadadbax ama sidoo kale wax loo yaqaan qofka dumarka markay kala tagaan iyo sidoo kale ninku in ay muddooyin bilooyin sugaan si loo xaqiijiyo qofkaas wax uu ninkaas u hayn maadaama diinta islaamka sidoo kale la iskugu meheray kuna dhaqmaayeen hadaba sidoo kale rasmi rays ayaa ku tijaabisay qofkan yar in ay brank ka dhigaysay maadaama ay ku tilmaantay maalintii beenta adduunka sidoo kale taas oo rasmi rays ku dheeraatay kuna sheegtay Farxaan Yare in uu yahay qof maandaya aan garanayn in qofkiisa xoolihiisa loo sida iyo sidoo kale wixiisa halkay marayaan taas oo ku tilmaantay carruurta u joogtay Djibouti in aanu ka warhayn maadaama uu ka qariyay sidoo kale rasmi rays markii iskuursanayeen in ay carruur hayso sidoo kale rasmi rays imaka waxay
gebi ahaan baraha bulshada caan ka noqotay baraha YouTube iyo TikTok. sidoo kale baraha TikTok ayaa xawli ku qabsatay halkaas oo runtii gabdho badan oo sidoo kale Farxaan Yare ka soo horjeedana ay uga heliyeen halkaas oo looga kacay shacbiyad badan aad tiro badan u heshay maadaama Farxaan Yare hadda dhulka uu galay.